maxaa ka socda magaalada Djibouti maxaase ka jira wada hadallada la sheegay in ay magaaladaasi uga bilaabmayaan SSC Khaatumo Somaliland Soomaaliya iyo waliba Djibouti waxaanu halkan idin kula wadaagaynaa xogihii ugu dambeeyay ee aanu ka helno guud ahaanba magaalada Djibouti waxa ka socda iyo waxa la filayo saacadaha inagu soo foole in ay ka soo ifbaxaan aan ku bilaabanay waxa maanta gaaray magaalada Djibouti madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo si heer sare ah ayaa loogu soo dhaweeyay waxaana ay sheegtay dawladda dalka Djibouti booqasho rasmi ah oo 3 maalmood in uu ku joogi doono dalka Djibouti sidoo kale waxa galabta qaabilay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelaha dalkaasi Djibouti su'aasha isweydiinta mudan si weyn baraha bulshada loogu hadalhayo ayaa waxa ay tahay ma dhabba ama ma xaqiiqba in ay SSC Khaatumo iyo Somaliland halkaasi ku wada hadlayaan inta bal hadda ayna gaarin oo ayna dhihin waa wada hadlayaan iyo ma wada hadlayaan aynu fiirino qaabka subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi. We always repeat subhanallah so many times a day when we say subhan rabbi al-azim, subhan rabbi al-a'la. And if you ask somebody, what does subhana mean? He say, I'm glorifying Allah. This is translation. But what does subhanallah mean? Subhanallah, it means I believe that Allah Azza wa Jal is free from any deficiency, from any faults, from any shortcomings. And at the same time, He is perfect in every attribute. Subhanallah wa bihamdih. And I am so grateful to you, Ya Allah, with all these blessings that you have bestowed upon me. Listen, adada khalqih, Allahu Akbar. Ya Allah, the number, the amount of your creation, the amount of your creation, humans, jinn, angels, insects, animals, cells, Milky Ways, the amount of your creation. وَرِضَى نَفْسِهِ. And, Ya Allah, I will repeat this until you are pleased. The amount